madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kormeer kadisa waxa uu ku tagay xarunta booliiska Soomaaliyeed ee Command Police ee magaalada Muqdisho halkaas oo saraakiisha booliiska uga socday shir ay uga wada hadlayeen amniga una shir gudoominaya taliyaha booliiska dalka Sarreeye Gaas Bashiir Cabdi Maxamed madaxweyne farmaajo ayaa warbixin ka dhigaystay hoggaanka booliiska waxaana uu dhinaca kale aad uga hadlay kaalinta booliiska iyo amniga caasimadda uu sheegay inay boodagayaal u yihiin waxaa madaxweynuhu uu kula dardaarmay saraakiisha kala duwan ee booliiska dalka in ahmiyad la siiyo ilaalinta amniga muwaadinka iyo hantidiisa iyadoo kooxaha nabadiidkan laga qaadayo tallaabooyin adag taliye ku-xigeenka booliiska Sarreeye Guuta Sakiye Xuseen Axmed ayaa sheegtay in madaxweynuhu aad uga la hadlay waajibka ciidamada ka saaran ilaalinta shacabka galabta waxaa si kadisaan ugu yimid kormeer oo madaxweynaha anigu ku guda jirnay shir maalmeedka caadiga ah oo shirka amniga guud oo ka wada hadlaynay habka loo xoojin karo amniga iyo wada shaqaynta bulshada madaxweynaha si kadis buu ugu yimid wuxuu maxaan ku raadaaday la dardaarmay saraakiisha oo howlgallada ku jirta wuxuu kala dardaarmay in bulshadana lala shaqeeyo howlgalladana la xoojiyo wuxuu dib noo soo xasuusiyay horta kow anaga inaan nahay ciidan laga soo aasaasay bulshada inaan nahay hooyada ciidamada qalabka sida oo anagana laga doonay inaan tusaale u noqono dhammaan ciidamada qalabka sida madaxweynaha waa madaxweyne bulsho marka fariintu ka wada bulshada madaxweynaha uu yahay ayuu maanta nala wadaagayay waxa keenay inuu nala dardaarmo shirkana si kadis loogu imaadana taas baa horta ku ka ahayd wuxuuna aad sidaan u sheegaba noogula dardaarmay inaan lagu xadgudbin bulshada anagoo sugidda amnigana ahmiyadda koowaad siinayna in maxaa ku raada bulshadana loo naxariisto loona fududeeyo inta uu fududeyn karno anagoo ah ciidankii laga soo aasaasay bulshada maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka hadlay in dowladda uu hogaamiyo ay tahay mid shacabku leeyahay isla markaana muwaadinku uu yahay kan markasta mudnaanta koowaad ula dowladda cali baasha cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya